dowladda Itoobiya ayaa mar kale ka soo saartay arrin xiisad dhalisay tuunkan ayaa imaaday kadib markii bogga internetka ee wasaaradda inay ku dartay liis leeyihiin maamulada Somaliland iyo Puntland inay khayladaan ka muujiyaan siyaasiyiinta Soomaalida iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Itoobiya ayaa sheegaysan marnaba diyaar u ahayn inay ku xadgudubto madax bannaan Soomaaliya isla markaana ay Somaliland iyo nabiyada dibadda ee dalka Itoobiya oo la hadlay idaacadaha Itoobiya waxay Soomaaliya qoonsan tahay inay yihiin maamullo hoos yimaada dowladda federaalka. sidoo kale nabiyada Gituuj ayaa sheegay inay dowladda Itoobiya xarumo diblomaasiyadeed ku leedahay Muqdisho, Somaliland iyo Puntland, taasina aysan la macno ahayn inay u aqoonsan tahay dowlado madax bannaan. mar wax laga weydiiyey sababta liiska maadaama loogu daray Somaliland iyo Puntland ayuu ku jawaabay in page-ka wasaaradda ay ku qoran yihiin waxyaabo badan balse arrintan dib u eegayaan. waxaa xusid mudan in wasaaradda arrimaha dibadda boggeeda ay ku leedahay internetka ay dal ahaan u aqoonsan tahay maamulada Somaliland iyo Puntland oo ay tixaysay dalalka ay xarumaha diblomaasiyadeed ku leedahay dowladda Itoobiya. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan ay muran badan dhalisay tallaabadii ay dowladda Itoobiya qariirada uga saartay dalka Soomaaliya, inkastoo markii dambe arrintaas raaligelin ka bixisay.